نخفف سؤال madrasadda xifdinta qur-aanka iyo barashada culumta shareecada ee Altooba ee magaalada Cerigabo ayaa munaasabad ballaaran u qabatay ku dhawaad 20 arday oo dhamaystay xifdinta qur-aanka kariimka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta madrasadda Altooba arday waalidiin mas'uuliyiin wadasaab ku xigeenka gobolka Sanaag iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyay maamulaha madrasadda Altooba Axmed Cabdullaahi Farax oo ka hadlay tirada ardayda maanta ka baxaysa iyo qaybaha kala duwan ee ay madrasadu ka kooban tahay madrasadan halka markii ugu horeysay waxa laga aasaasay 2005 markay ahayd xilligaas oo markaa uu furay Ali Cabdullaahi Farax uu aasaasay inta kadib waxa markaa 2008 gacanta ku qabtay ama 2007 Sheekh Maxamed Axmed Xasan Maxamed Shoode oo iminka inala jooga inta kadib ila 2009 waxa markaa la sii wareegay oo sii qabtay Sheekh Saciid Cabdullaahi Diiriye oo Saciid Qaxwe la yiraahdo sidaad u taqaaniin 2013 dhamaadkoodii ayaanu kala wareegnay markaskan Altooba Sheekh Saciid Cabdullaahi Diiriye Saciid Qaxwe aanu kala wareegnay runtii maanta waxaynu halka markaa u joognaa waxa weeye xaflad bilan oo boqran oo markaa lagu gudoonsiinayo arday quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qalin bedelatay oo markaa dhamaysay shahaadada ardaydaasi waxa weeye 18 arday weeye ardayda maanta dhamaysay quraanka ee shahaadada lagu gudoonsiinayo waxa kale oo markaa aan ka maqnayn meesha in ardaydaas ay markaa dadaal badan iyo socod badan markaa iyo juhdi badan ay soo bixiyeen oo markasta aan uga mahad celinayno markasta waxaanu diyaar u nahay inaanu jiil soo saaro hooyooyin iyana soo saaro arday yar yar inaanu soo saaro kuwa roon inaanu soo saaro oo markaa ku labisan shariicada islaamka iyo diinta iyo dhaqanka waxa kale oo xusid mudan inay madrasadu markii hore ay ku jirtay dhul markaa kiraa laakiin alxamdulillah iminka sanadihii ugu dambeysay ay dhismo waasic madrasadu ku haboon ay haysato dhismahaas oo ka kooban 3 fasal oo fasal kasta waasic uu yahay iyo xafiiskoodii alxamdulillah ilaahay baan uga mahad celinaynaa xilliyada madrasada la dhigto gelinka hore 3 fasal baa gala galabtiina 2 fasal baa gala 5 fasal bay madrasada ka kooban tahay iyo qaybaha kala duwan waxaanu markaa aad iyo aad aan ugu markasta ugu mahad celinaynaa aanu ilaabayn waalidiinta sharafta iyo karaamada iyo maamuuska iyo ixtiraamka naga mudan waxa iyaguna halkaasi khudbado la xiriira cilmiga ay barteen ku soo bandhigay ardayda runaantiina quraanka maanu dhamayn ee waanu qani qoranay waxaanu rajaynaynaa macallimiinta iyada ardayda bedeli doonta ee u soo socota markiiskan inaanu ahaano mumalatan thumma ghayn khaa'u والثاني إضغامون بالستة أتات في يرملون عندهم قد ثبتت ميسو وبحي إسلام كيو أي دلكان هاي إريدي هانون كيو أي إسلام كان ألطوبان كبراني وبدكينا كيانو كبر باش دينتو قوبتا تلماماني دادكو ودا قوبتا تعلين تالي دادكو ودا تلمامين تيديسا بارتي waxa iyaguna halkaasi hadallo dhiirigelin iyo dardaaran ah ka soo jeediyay mas'uuliyiin isugu jira waalidiin isuduwayaal macallimiin kuwaasi oo ardayda ku hambaliyeeyay barashada quraanka waalidka mas'uuliyadda saaran waxa weeye in laga ilaashado caruurta inay bay'adda kaaga lumaan oo suuqa ka raacaan iyo waxyaalaha ay gaaladu iclaamaadka la yiraahdo in laga ilaaliyo oo inanka iyo inantaba waqtigani waa waqtiga ay ugu hawsha badan yihiin in la ilaaliyo waalidiinta waxaan kula talin lahaa inay iyagu diinta bartaan waayo ilmahaaga ma miisaami kartid waxa uu soo bartay haddana adigu wax aqoon ardayda waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo waad naga farxiseen kitaabkii Ilaahay baad xambaarteen halkaa hore uga sii wada soo runtii waxa sabab u ahayd in la keeno halkan oo la dhiso Sheekh Maxamed Cabdullaahi Guuleed isagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta runtii ma suurtagelin halkan nagala soo qayb galo oo mahadnaqaynaa isaga soo qaaday runtii waxa weeyaan maasha maanta waxa weeyaan ubadkeena ay wax ku baranayaan isagana waa mahadnaqaynaa waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha kugu buuxiyo markaas waxa weeyaan yawma la yanfa'u maalun iyo quraan ba barta dhamaan ardayda kale ee halka iga maqlaysa
ee madrasada dhigata waxaa looga baahan yahay in ay noqdaan kuwa higsada oo ardayda ku dayda. beecaddu waa saaxiib xun, beecadda lafteedu ama saaxiib xun bay noqotaa ama mid wanaagsan. runtii beecad aan wanaagsanayn baynu ku jiraa iminka oo macallimiintu sida uu sheegay cabdimaalik ba waxa weeye saaxiibku macallinku waa macallin, waalidkuna waa macallin, beecadduna waa macallin. beecad runtii adag baynu ku jiraa, ilaahay taana maaragtay ha inaga badbaadiyo. ahayn runtii markaskani iguma jiro maraakista, waa iga gaar. ardayda qur-aanka dhammaysana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo. si loogu dhiirigeliyo nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay oo sheegay cidda inoogu wanaagsan ee inoogu khayr badan inay tahay cidda qur-aanka barata ee haddana barta. ilaahay haynu ku anfaco waanada iyo waqtiga aynu halkan siinay. meel la isugu yimaado xaflad uun qur-aan lagu sare qaadayo ayaa ugu fiican. wax badan baa la xafladeeyaa adduun weynaha, dowlad baa dhalatay oo aroos ayaa laga xafladeeyaa, xafladuhu waa badan yihiin. tanaa ugu qaalisan kitaabkii ilaahay barashadiisii baynu xafladaynayna. aakhiro waa la kulmi doonaa insha allahu tacaala, miisaanka xasanaadka allah inoogu daro. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan. quraanka ka qalijibiyey waxaan ilaahay hambalyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa hawsha aad ka soo baxdeen. maantana meel fiican baad joogtaan, waxaad barataan waa wixii wanaagsanaa baad barateen, if iyo aakhira baydaan facaayeen. maanta waxaad joogtaan guul, waxaa laydinka baahan yahay guusha inaad kor usii qaadaan. waxaa laydinka baahan yahay dadkiina kale ama wiilashii idinka diiraraa ama kuwa idinka hooseeya inaad wax bartaan. waxaa laydinka baahan yahay kuwa waaweyn ee waalidiintaan waxba oqo inaad wax bartaan. maanta waxaad tihiin dad gobolka usoo kordhay ama degmada usoo kordhay Ceergaabo oo run ahaantii diinta islaamka iyo shareecadda islaamka bartay. guul baad joogtaa, wixii u wanaagsanaa baad barateen. ilaahay kor ha idin qaadaan leeyahay, hayna idin siyaadiyo waxbarashadiina aad barateen. gabagabadiina waxaa munaasabadaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay xifdiga qur-aanka kariimka, halka ay ardayduna macallimiintooda iyo maamulkooda shahaadooyin iyo hadiyado kale ku maamuuseen. si kastaba ha ahaatee ardaydan ayaa noqonaysa dufcaddii afraad ee qur-aanka kariimka ka dhammaysa madarasada Altooba ee magaalada Ceerigaabo. Siciid Muuse Faarax, Siciid Qurbaawi, telefishinka caalamiga ee Badda Cas TV, magaalada Ceerigaabo.